walaa waxaan idin salaamayaa dhammaan dadkii soo qaybqaabiyey xafladan iyo dadkan sharafta leh ka soo qayb galeen waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal marka u horeysa waxaan idiin sheegaynaa inaanu xusbi ahaan u aqbalnay inaanu sharaxno labada musharaxay keenteen. hore waan u aqbalnay iminkana waa aqbalnay insha allahu tacaala. ilaahayna waxaan ka baryayaa ilaahayna inay noqdaan kuwii soo baxa oo guulaysta dalkooda iyo diintoodana anfaca ilaahay ka baryaya subxaana wa tacaala. walaalayaal inkastoo aynu dhisino ummad muhimiyad aan dhisna reer somaliland ah oo aynu ka guurino qabyaaladda oo wixii aynu asxaabta u samaynaba ahayd inuu qabyaalo laga guuro oo aynu dhisno ummad lagu kala saaro aqoon lagu kala saaro iyo xilkasnimo marka loo dhiibiyo magaranaysahaye mas-uuliyad. haddana waxay nasiib darro ah ilaa hadda inaynu bahashii qabyaaladaheeduun aynu dabada hayno. waxaan jeclahay insha allahu tacaala doorashada ku xigta inaynu ka baxno beel baa keentay musharax aan ka tagno oo sidii aan u qabanay 2002 doorashadii u horeysay ee deegaanka inuu asxaabtu ay soo xulaan dadka ay isleeyihiin waa mudakariin oo dalka wada karayaan oon loo baahan reer hebel baa keenay reer hebel baa keenay. haddaynu laakiin weli ku jirno reer hebel baa keenay oo maanta arrinta caynkaa socota dee beeshan xaaji ayuub sheekh isxaaq waan ognahay waa beesha ugu karaamada badan ee ducayaalka ah ee beesha reer sheekh isxaaq. waanu ognahayoo badbaadadii SNM waxay bilaabantay markay gogasha dhigteen madaweyn marka dhigteen ee guurta la sameeyey ayay guushu samaysantay bilaabantay SNM. ilaahay guushii SNM siiyey waa kii dalka aynu ka xoreynay nidaamkii qabiiliga ahaa ee fashiista ahaa waa inuu ka qabiilnay. waxa weeye dalka waa la wada leeyahay reer badan iyo reer yarba waa loo siman yahay dalka dheeftiisa iyo dhibaatadiisa waa loo siman yahay. marka aad baan uga naxay markii la yidhi beeshii reer xaaji ayuub sheekh isxaaq ayaa wad kulmiye oo yidhi kursiydii ma hayo musharaxnimo. aad baan uga naxay. annagoo markaa 20 xubnoodba buuxinay ayaa subxaana wa tacaala salaadii duur markaan u kacay ayuu ilaahay subxaana wa taala ilaahay aan xasuustay inuu hal meel aanay cusleen oo la bedeli karo. halkii baan idinku bedelay oon jaanis saasaa u hesheen. waxa weeye musharaxiinta keenteenna maanu maxamed baan aqaanaa alxamdulilaah. saa uu sheegay koo yar buu hana qaaday ilaa safiir buu ka gaadhay ilaa wuxuu la soo shaqeeyey international organizationska. waa dadkan doonayno inay waddanka ay horumarayaan ayuu ka mid yahay. xildhibaanka deegaanka mas-uuliyaddiis waxa weeye inuu horto deegaanku degan yahay ee masalan waxay markaa u badan tihiin deegaankiinu xaafadda amba degmada la yidhaha 31 May waa inuu wakiil ka ahaadaa halkaasoo baahida deegaanka 31 May uu ka soo warbixiyaa baahideeda daruuriyeed. waxay u baahan tahay waddo la'aanta haysa biyo la'aanta haysa
MCH la'aanta waxa loo doortaa deegaanka local councilka loo doontaa waxa weeye inuu qof kastaba uu ka soo warramo xaafadda uu degan yahay daryeelkeeda iyo wax u baahan tahay ayaa weeye waxaan jecelahayna inuu xilkaa qaadi doonaan jecelnahay insha allahu tacaala maanta magaaladeena waa ogtihiin maalina weytoon u baxayey burco markaan u baxayey ayaa waxaa jiray berbere markaad ka leexatid goolada eed waddada bariga qabsatid waddadaasi berbere markaad ka baxaysid ilaa iyo kantaroolka way jajabneed aad ba u jajabneed markaan laba jeer maraban maalin saddexaadii anoo ku socda haddana bari ayaan arkay waddadii oo caynkeediya telefoon baan u diray nin local councilka ku jira berbera oo cabdirashiid la yidhaaho waxaan ku yidhi wardee magaaladiinu marka xagga bariga loo socdaa hargeyse u eegtay baan hargeyse u eegtay waddada iska hagaajiya inankii waxa weeye wuxuu gaarsiiyey arrintii meeyarka anoo ceergaabo maraya ayaa la ii sheegay inuu waddadii dhagax dhigay meeyarkii cabdirashiid ee berbera waddadii waana u dhisay waxay la tahay madaxweynuhu hadduu doonayso uu doonaya inay hargeysa qurux badnaato waddada u baxaysa galbeedka iyo u baxaysa bariga ee hargeysa oo goodad noqotay hadduu meeyarka oo lahaa war waddadaa dhis waddooyinkaa dhis inuu dhisi lahaa maray meeyarku laakiin waxay u muuqataa inaanu madaxweynuhu aanu barnaamij darajeed ka lahayn hargeysa sidii loo qurxin lahaa haddaanu taa ka lahayn de qarankana kama leh oo istaraatiijiyad ilaa hadda istaraatiijiyad aynu ka leenahay siyaasaddeena dibadda ta dhaqaalaha ta difaaca oon maanta leenahay ha la ilaaliyo waa siyaasadda iyo istaraatiijiyada dowladda madaxmuuse ma jirto maanta waddankuna waddana ma socon karayo haddaanu siyaasad iyo istaraatiijiyad aan lagu dhaqmo aan lahayn ma soconayo taasna waa intayna dhaxal siisay inaynu 30 sannadood aynu gaali weyno xuduudaheena oo dhan inaynu 30 sannadood aynu ictiraafkeena heli kari weyno cidla iska yaala waa hoggaan xumo iyo kabaasiti la'aan iyo aragti la'aan baa weeye hoggaaminta maanta siyaasiyiinta Soomaaliya waxaan doonayaa walaalayaal doorashadaasi inay doorasho wanaagsan noo dhacdo waxay noo dhacay diiwaangelin wanaagsan oo si fiican u dhaco dadku aad iyo aad isku soo abaabuleen laakiin laba maxaan ugu soo baxay waxa weeye laba musharaxna waa la naga xiray wax alla waxay sabab geysay aan jirin musharax kalena waxa loo diiday xiraaliba u diiday warqadii dambe la'aanta labada arrimood waxay tusisaa inaynu la kulmi doono malaynayaa dhibaato ilaahay naga hayee oo doorashada siday u dhici jirtay doorashooyinka madaxweynayaashu ma soo fargelin jirin berigii hore madaxweynayaashu hadduu siiraayo in adeerkii walaalkii xusbi kala galo ma soo fargelin jirin annaguna hadduu dadka naga aan isku dhownay meelka maanu fargelin jirin laakiin hadda waxaa ka muuqata fargelin fool xun oo dalkeenna foolxumo u yeelisa madaxweynahana foolxumo u yeelisa waxaan leenahay arrintaa waa in laga joogaa waan leenahay madaxweyne waxaan leenahay hala soo daayo musharaxiinta dadkan aad amarka siinaysanaydi hebel ha siinina warqadda dambe la'aantana ha jooji baan leenahay waa madaxweyne waan leenahay taas adna waxbay ku yeelaysaa dalkana waxbay yeelaysaa innagana waxay iska keenaysaa asxaabta oo hadda wada shaqaynaysa si doorasho loo heli lahaa taasna waxaan jeclahay inay salaadiinta iyo dadka mas-uuliyadda ka shaqeeyaan madaxweynaha loo tago laga joojiyaa qodqodayntu qodqodaya magaranaysa doorashooyinka iyo xildhibaanada ka soo jeeda beeshiisa musharaxiinta inuu faraha kala baxa baanu ka heshanayna insha allahu tacaala walaalayaal waxaan ka codsanaynaa inaynu kaadbedelkiina qaadataan kaadbedelkii waa bilaabnaa shalaytaan soo qaato iga lumay horo kii horo iga lumaye doorashada maalinta doorashadana inaynu seexan ee soo kala hadaan maalintaasay hiil weyn idinka baahan yihiin insha allahu tacaala labadeena musharax waxaan ku soo gabay hadalkaygii
waa mahadsantihiin beesha ayuub sheekh isxaaq sidaad noo sharifteen ilaahay idin sharfo idinkana ilaahay idin sharfo waa idin ducayna wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.